عدالة ربك معبودك سبحانه وتعالى يكتي ستالا وانا اجد سيدنا لوغو تكريف لنا ايو ووح بالآدم لماذا كبحسن صومالي لما كبحسن إسلامي لما كبحسن ذاتك أنك قلق أفرني أو أودي بنينا ما هذاتك ما أنت جوابتان كيني وأدل صار دوبي waayahay warkan soo baxay waad aragtay bal markii hore oo aad dacwadan furayseen oo ra'iisul wasaaraha arintan la kaashanayseen sidee dacwadan u marteen anaka dacwada dadkii dambiilayaasha ahaa oo gabadheeni dhibaateeyaan anaka dacwad ka geysanay gal ka furanay dadkii xeer ilaalintii aan wax u geysanayna ma aha dadkan waa dad qaas ah oo farmaajo uu u geeyo siday rabaan inay u yeelaan oo ugu talagalay wayna u yeeleen farmaajo waayahay arrinfadii oo macnaha gabadheeda dhibaataysay waayahay arrintan ra'iisul wasaaruhu waqti badan buu galinayay dhowr jeerna wuxuu sheegay cadaalad in loo raadinayo xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida oo hadlayna waxa uu kamid ahaa guddigii isagu u magacaabay marka bal xagee wax ka qaldameen wallahi meelay ka qaldameen aniga ma aqaano maxaan ku dhahaayay waa arrin oo takrifal u jeedid ummadda Soomaaliyeedna ha maqasho oo cadaalad iyo xaq jecel oo garab taagan oo maxaan ku dhahaayay muslimka ah waa arrin xadgudub ah waa arrin maxaan ku dhahaayay sidii la doono la yeelaa waa u jeedaa hadda waxa loo soo hormariyay arrintaana waxay tahay si dadkan hadda xasaanada raadsanayo oo maxaan ku dhahaayay dhibaatada lagu sameeyay si oo maxaan ku dhahaayay looga soo hormariyay arrintan loo soo boobsiyay waa loo jeedaa fiiska ra'iisul wasaaraha dhowr jeer aad tagteen idinkoo cabasho ah oo ehelkii dhibaatadu gaartay ah goorma idinku ugu dambeysay dhanka ra'iisul wasaaraha iyo wax xiriira ama wax xoga oo idinkaga timaada wallahi ra'iisul wasaaraha waa kiin garab taagnaa waa kiin maxaan ku dhahay ikraan cadaalad helaysa oo wacad ku maray kullee asagii un baan uga fadhinay ilaa hadda waxa hadda filayna ma aha waxa waa arrin cusub oo fajaca waay tan waayahay waxaan yeeli karnay waxa qaadanayna waxa ummadda Soomaaliyeed qaadan kartana ma aha dhibaatadan yaa ku tuhmaysaan dhibaatadan wixii ka dambeeyay waa la ogyahay gabadhayda meel adni laga qaaday dadkii qaadan waa dadkan maalinba meel madaxa ka soo dhiibanaya waay maalinba meel oo maanta noo awood sheeganayo awoodda Ilaahay awoodiisa hatuso kuwaas waayahay waxay sheegtay xeer ilaalintu in baaritaan lagu sameeyay agaasimihii hore Nisa Fahad Yaasiin iyo agaasimaha xilligan Yaasiin Farey iyo Cabdullaahi Kulane waana dadka aad ku eedeynaysan inay ka dambeeyeen dhibaatada ikraan marka bal baaritaanadaas wax ma ka ogtiin in la sameeyay wax xoga ma idin ka soo gaartay waxaan ka ognahay ma jirto annaga waxaan ka ognahay ma laha waxa meesha ka socdo wax la qaadan karana maaha wax oo waayahay karnayna maaha waxaan wax diibanayna maaha waayahay haddii madaxdii dawladda iyo mas'uuliyiintii dalka ugu sarreysay ee xiraalintii warkan soo saareen bal maxaa xigoo la samayn karaa si cadaalad loo helo maxaa qorshe ah cadaalad waa helay ikraan biidnillaahi baari way helaysaa dal iyo dibadba annaka dacwada waa geysanay waana ka guulgaaraynaa waana heli doonaa nimankaas xasaanadna wax lagu qarsoomi kara maaha wax maxqaadaay lagu dhuuman kara maaha ummadda Soomaaliyeedna way u jeedaa wax qof walba oo Soomaali oo maanta cadaalad jecel oo rabbigiisa subxaanahu wa ta'aala ka baqaay wuu u jeedaa meesha arrintan sida u socota iyo sida ay tahay wuu u jeedaa waayahay yey tahay cidda aad tuhmaysaan oo aad u maleynaysaan ama aad ku tuhmaysaan in xasaanada loo raadinayo dadka loo raadinayo waa niso dadkii niso joogay waaye oo gabadhayda oo dhibaateeyay waaye oo Fahad Yaasiin ugu weyn waayahay marka hadda haddii warkan soo baxay oo aad ku tuhmaysaan dhanka Nise iyo madaxtooyada in dhibaatadan ay ka dambayso bal xafiiska ra'iisul wasaaraha isaga maxaa ka filaysan dhanka ra'iisul wasaaraha arrintii uu macnaha uu yiri uu dhaartay oo maxaan ku yiraahdaa uu garab istaagnaa oo ikraan cadaalad waa helaysaa yiraahdaa uga fadhinaa asagana mar hoosteed iyo wax midina ma noqonayso ilaahayga qaalqa oo adduunyadan tiir la'aanta taagana waa u jeedaa nimankan waxay ku dhaqmayaan iyo waxay sameynayaan ayagoo xil rabo oo inay ilmo dhalaan rabo oo inay ilmo koriyaan rabo oo inay ilmo wax u bartaan rabo hadday annaga saan ugu sameynayaan ma